kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warbixintan gaarka waxyaabaha ayna diiradda ku saari doono waxa qayb ka wararkii ugu dambeeyay magaalada Beledweyne xildhibaano iyo musharaxiin ku geeriyooda qaraxyo isxigxigay oo ka dhacay magaalada Beledweyne waxa qayb ka Allah u naxariistay xildhibaanad Aamino waxaa jira xildhibaano kale iyo musharaxiin ku sugnaa goobta oo qaraxyadaasi ka dhaceen oo geeriyooday haddaba wararkii ugu dambeeyay magaalada Beledweyne doorasho halkaasi ka socotay iyo xerada lama galaay oo qaraxyo dhowr ka dhaceen madaxweynaha Hirshabelle ayaa qayb ka ah dadka ku sugan halkaas xaaladda guud ee Beledweyne ayaan ka warrami doonaa iyo wararkii ugu dambeeyay ee fadlan ka hor muuqaalkan intaan gudagelin faahfaahinta si share garay saaxiibada kale la soo wadaag bogona ku soo biir haddii aad nagu cusub tahay folowdiya leegta saar wagaag haddii aynu ku bilowno magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa saacado isku dhow oo daqiiqadaha ka dhacay saddex qarax kuwa oo khasaaro weyn sababay Allah u naxariistay dadkii ku dhintay waxa qayb ka ah xildhibaanad Aamina Maxamed Cabdi oo ku geeriyootay qarax lagula eegtay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sidoo kale waxa qaraxaasi ku dhintay xildhibaan hore oo lagu magacaabi jiray Xasan Dhuxul oo kamid ah musharaxiinta xildhibaanimo haatan mar kale doonaya ee ku sugnaa magaalada Beledweyne qaraxa oo shaqxigay ka dhacay magaalada Beledweyne ayuuna ku geeriyooday jawiga guud ee Beledweyne ayaa isbedelay waxa jira dhaawacyo iyo sidoo kale khasaare baaxad leh oo ka dhashay saddexda qarax ee ka dhacday magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee caawa halkaasi ka dhacay ila xog ogaaliya ayaa inoo xaqiijiyay Allah u naxariistay in xildhibaanad Aamina iyo ciidamo ilaalo ah oo la socday isku qarxiyo qof isku soo xiray walxaha qarxa sidaasna ay keentay in isla goobtii ay ku geeriyooto jawiga guud ee magaalada Beledweyne ayaa mar qura isbedelay waxaana hawada laga saaray guud ahaanba korontadii magaalada iyo isgaarsiinta qaraxyadan khasaaraha ka dhashay aad u baahay waxaana halkaasi doorashadooda ay ka socotay kursiga siira hal waxaana xerada lama galay haatan ka socda rasaas sida ay xogaha tilmaamayaan madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaaw Xuseen ku-xigeenkiisa iyo mas'uuliyiin kale ayaa ku sugan goobta qaraxyadan ka dhaceen waxaa jira khasaare badan oo ka dhashay xildhibaanad Aamino oo kamid ah dadka caawa qaraxyada Beledweyne ka dhacay ku dhintay Allah u naxariistay ayaa kursiga hore ugu fadhisay mar kale u tartamaysay waxaana qayb ka ah dadkii aadka ugu doodayay kiiska Ikraan Tahliil Faarax mar kale ayuuna rajo weyn ay qabtay inay kursigaasi ku guuleysato doorasho maanta ka dhacday magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo saaka bilaabatay ayaa xilli dambe oo galabtay ah lagu kala baxay waxaana halkaasi ku hogooba qorshe ay filla Soomaaliya lafta garan ka wadeen Beledweyne xaaladda guud ee Beledweyne caawa waa mid ka duwan sidii hore ahayd xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi ayaa kamid ahayd xildhibaanadii baarlamaankii 10aad mar kalena doonaysa inay ku guuleysato kursiga hore ugu fadhisay Allah u naxariistay waxayna deegaan doorashadeeda ahayd magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xildhibaan Aamina ayaa ahayd xildhibaanadii ka tirsanaa baarlamaankii 10aad waxayna kamid ahayd tiro xildhibaano aad ugu taagnaa cadaalad u raadinta marxuumad Ikraan Tahliil Faarax oo ka tirsaneyd hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka NISO iyadoo lagu eedeeyay inuu dilkeeda ay ka dambeeyeen saraakiil sarsare oo NISO Aamino Allah u naxariistay ayaa maalmihii dambe ku sugnayd magaalada Beledweyne ee deegaan doorashada labaad ee Hirshabelle kursiga ay ku fadhisay ayaa dood badan dhaliyay iyadoo la doonayo in la siiyo shakhsi ay wadato filla Soomaaliya balse waxa isku khilaafay hoggaanka sare ee Hirshabelle oo waayihii dambeba dood weyn ay ku gadaamneed geerida xildhibaanad Aamina ayaa waxa ka tacsiyay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dawladda Soomaaliya kuwii 10aad iyo kuwa hadda mar kale guuleystay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo ururada bulshada rayidka dadka aad ugu dhawaa xildhibaanad Aamina Allah u naxariistay ayaa ku sifeeyay inay lahayd shakhsiyaad dad la dhaqan qaraxyada ka dhacay magaalada Beledweyne oo ahaa kuwa isxigxigay isla markaana xoog badnaa ayaa si weyn looga maqla xaafadaha kala duwan ee magaalada Beledweyne waxaana la sheegayaa inuu khasaare baaxad weyn oo dhimasho dhaawac mas'uuliyiin dawladeed kuwa hore xilal u soo qabtay isugu jira iyo mid shacab ay ka dhasheen qaraxyada ka dhacay caawa magaalada Beledweyne ilaa saddexda qarax ee ka dhacday magaalada Beledweyne ayaa sababay khasaarad baaxad weyn waxaana adag in la ogaado khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay maadaama wali la wada gurmad loo fidinayo dadkii wax ku yeeloobay qaraxyadaasi isbitaalada magaalada Beledweyne ayaa haatan la gaarsiiyay dad ku dhaawacmay qaraxyadaasi waxaana wararka inta ay ku darayaan in xaaladda haatan ay tahay mid aad u kacsan xilli cabsi laga qabo inay kuwa kale halkaasi ka dhacaan amniga guud ee magaalada ayaa waayihii dambe aad looga dayrinaya Cali Guudlaaw ku-xigeenkiisa iyo dhammaanba mas'uuliyiinta ugu sarreysay Hirshabelle ayaa haatan ku sugan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo caawa saddex qarax oo mas'uuliyiin heer federaal ay ku dhinteen ka dhaceen
fadlan daawade haddii aad nala socoto sii sheer garay muuqaalkan oo baraha kale ee bulshada ku sii sheer garay saaxiibadaada sii gaarsii oo duceey dadka halkaas ku dhintay inuu Ilaahay naxariistiisa janno ka waraabiyo muuqaalkan mid lamid inta kulmi doona nabadgelyo waxaan halkan kugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda Beledweyne qasaaraha qaraxyadaas ka dhashay iyo xaaladda marba halka ay marayso mahadsanidin